tobankii sano ee u dambeysay shirkadda Sostec ayadoo ka qayb qaadanaysa abuurista biyo ku dhisan tiknoolajiyadda waxay hindistay software casri ah oo wax badan ka bedelay nolosha iyo shaqada maalinlaha ee macaamiisheeda. Adeegyadeena soo jireenka ee isla socda sida martigelinta iyo naqshadaynta website-yada waxay si baaxad leh kor ugu qaadeen sumadda iyo muuqaalka ganacsiyada. Sanadkan si dhamaanaya 2019 wuxuu ahaa sanad guulo iyo waxqabad ugu asteysan Sostec. In ka badan 2,200 oo macaamiil ah ayaan ka caawinay inay shaqadooda u raraan deegaan horumarsan oo casri ah. Qaarkoodna gebi ahaanba ka baxay hanaankii manualka ahaa. Waxaan sameynay adeegyo cusub oo dhowr ah sida Macaash oo ah application u suurtagelinaya ganacsiyada inay alaabtooda ku iibiyaan si fudud oo waqti yar. Shaqakaab HR waa software u dhameystiran shaqada iyo shaqaalaha. Waxaad ku keedin kartaa xogta shaqaalaha, fasaxyadooda iyo mushaaraadkooda. Sidoo kale si sahlan ayaad ku helaysaa warbixin iyo shax dhameystiran oo ku saabsan soo saarka xilliyada shaqada la soo galo ama laga baxo. Bilowgii sanadkan waxaan soo saarnay software u gaar ah deegaameynta, guriyeynta iyo dhismaha oo aad ku maareyn karto hawlaha la xiriira deegaankaaga ama gurigaaga. Waxaan soo kordhinay software u gaar ah xisaabaadka biyaha iyo korontada, lehna application u adeegsado saacad qoraha si uu ugu kaydiyo isticmaalka biyaha iyo rasiidka, lehna fariimo SMS macaamilka lagula xiriiro. Sostec waxay ku guuleysatay soo saarista software ay ka mid yihiin mid lagu bixiyo shahaadada badqabka caafimaadka iyo ogolaanshiyaha shaqada, application loogu talagalay xog ururinta oo lagu ogaanayo xaaladda qoysaska Soomaaliyeed, dhanka dhaqaalaha, waxbarashada iyo xaaladahooda guud. Sidoo kale waxaan hormarinay electronic case management system. Sida laga dheehan karo guulahaas waxaa aasaas u ah jiritaanka 6 qiyam oo ay shirkaddu ku howlgasho si looga miro dhaliyo shaqo abuurka dhalinyarada laguna kobciyo shaqada macaamiisha iyo isticmaalayaasha adeegyadeena. Dhisidda iyo tabarucidda digital memorial platform, samaynta tartamo iyo munaasabado loogu magac daray Sostec Tech Week una gaara dhalinyarada iyo ardayda baranaysa cilmiga kombiyuutarka, tababaridda gabdhaha iyo da'yarta dalka ayagoo ka faa'iideysanaya mashruuca Bilankoodis. Dhammaantood waxay qayb ka ahaayeen sii xoojinta mas'uuliyadda naga saaran bulshada si baahiyahaas loo daboolo loogana faa'iideysto tiknoolajiyadda. Ahaanshiyaha shirkadda ugu weyn ee tiknoolajiyad ka shaqeysa Soomaaliya laguna maamusay doorkeeda haysatana abaalmarin caalami ah. Sostec waxay xaqiijisay inay tahay hay'ad firfircoon oo kaalin weyn ka qaadatay isbeddelka dhinaca tiknoolajiyadda Soomaaliya, iskuna dayeysa in qof walba oo Soomaaliyeed uu ku nacfiyo horumarka tiknoolajiyadda.